Raxmaan Raxiim qodobada ku maqli doontiin rungood midiya waxaa ka mid ah bam gacmeed lagu tuuray xalay irshaad isbaara ku taala iyo dhaawac halkaasi ka dhashay faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya masaajid saakay lagu weeraray nin salaad ku jira tooriil lagu dhiftay kadibna uu geeriyooday dowladda Soomaaliya ayaa saaka la wareegtay daawada cudurka coronavirus ee Muqdisho la soo gaarsiiyay dowladda Kenya ayaa maxkamadda isaga baxday ACG-da gabi ahaanba markii loo kari weysay qareenada ka socda dowladda Soomaaliya ee u dooday biyaha badda ee Soomaaliya iyo Kenya muranka gelisay dad ku sugan degmada Rungood ee gobolka Shabeelle Dhexe oo la soo xiriiray ayaa noo sheegay in saansaan roob ay muuqato xalay iyo maanta birqaysa xalay maantana cirku wanaagsan yahay wax roob diiro u ogyahay shay tobanka bishaan ay ahayd markii dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday qoftan af ku xiran oo la arko in la xabsiga la dhigi doono laga qaadi doono $5 iyo beriga ololahaas oo bilaaban iyo dadkoo ka sii digtoonaaday wada wata geedka af xirta la yiraahdo afka lagu xirto saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warkii Rungood Media ka baxa maanta waad ku mahadsantiin